iskaash بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت هو معراجكي أو مال بركيسان أو أمة الإسلام كان بدن كود وفصح إلا جنا وحين هو بيجنتي ما أنت خير كبدن نفرنا بريجكم وحنا أدي الله ما ضغينا دولة الإمارات كعربت أو إنه الجلسي مشاريع بدن أو إنه بدن وسوق شغلي ندل كذي بالله أيوة قادر إنه كتاجران سوماليلاند أو إذا كده إيربورك يوضع ذلك كمديه أو رنتي داق ولا تنمو أو معاونة ولا ليضة شركة ليس يساعد كده هو شركة مشتري أو نهشيس ولا قلبة مشتري لكن هو شجرانك يوضع وحلو عاوية دولة الإمارات كعربت مشروع عين تعلق دولة أصدقائك وين نوجا سلطان تاعي تذكر هو إنه قلوبيه دولة دولة وين نوجا سلطان تاعه ودولة دي أنت أصوب عاولة نسيسة يوحي كلا سورة عبا هذه أدنى نوبال كأوه هنا سوماليلاند كيلو يوم مدينة أبال كوي قداه سؤال واحد هذا بودي ركبان ما بيتبقى قاوني حدي ما تا وحكي حي سوماليلاند حق نقالها إن شاء الله وين قدونا الله حول إنه دين لا ينوقلي ولا تنوى إنه مكان تاي تاسع كنا فيها وحنا ديالو من غيار مرتشنا في تاريخ جوبت لما أنتوا ده شركة صور غيب قلي وحنا ما أنت لوان إنه هالك فرينا نأذو ما نقول ودتك حوشر يتعوشها برجي لجوي حول بدن وجيستي أو عملك جيستي وحلباكي حراء دقبدن أحمد ويسعده على حول ملايين دكتور أنت بدل هيي أو دكتور بدل سوودي مالتي لورتي الدولة وكورتي سعيدة إمارات إلا ما أنت روحي تمر إيه عقلي إيه وهي ويرجع بابا إسمعنا كنت أو أنت قلتنا أضياشي ما كمدا كل هالكوا فرنسالاتين تي أغاش تيف عقل كيه حوش أدويدين وحي أي كسر رفضي يضودي نقدر عيسى يمرنكي يوحي لقاري الحمد لله ما أنت إلى المريه دو شغله عيد كسوق قيب قاضتينا هذه أدبار ومنطقية تدوينا السومال هذا وحنوشية ملك استوي شوقان عقلية دمرك مشروع على وضوح هرمنا هلا كانوا وحلقة دوري إنه سكلف تاجنو عقل معها أنا ما هي تمرا وحكومته تمرا معدن كوقته تمرا بترول كوقته تمرا المشاريع وين كوقته حدنا كينا هو سور تاجيا أو أنا كترنا هي أو تيدا ليريا وما سعنيس دستور كل حليه هاي خيرات كدلك يمام الكيسة قرن كسوال لا تبارك قرن كنا وحقوق مدي دولة وحياة كانت هو إلا قاطع والله اسم قلاه markaasaynu hor u marayna waxaan aad uga mahadnaqayaa deegaanka ay wadada martay iyo mashaariicda kalawa inay taa ku dhaqmeen
oo qaateen mashruucii dowladdu keentay waxna la qabteen kuwa kale inay ku daydaan baan ka doonaya haddii ilahay lahay hadalka maanta halkan ay leedahay intaasaa ku dhaafaya walaalayaal dalka waxaa ka jirta abaar kulul sidii ilaahay looga bartay todob ayaa bilaabmaya kontonkii ay odayaasha jiray waa siyaryeel konton habeen ka bacdi waa roobkii la filayaa bisha abril 18 ugu dambayn sidii ilaahay nooga barin ugu dambayn jiray maantana waxay joognaa 28kii February waxaynu haray March April oo laga yaabo inay aad u kululaato dalka dhammaantii inta badan waxaa ka jira biyo la'aan weli waxaanu ku leedanahay xooluhu daaqina way haystaan xooluhu may leecin sida dadka qaarkii waxa uga tabinayaan miidiyaha arrintu ma aha balaayo aanu ilaahay ku keenin in loo yeedho ma aha waxaad maqlaysaan dad baa dhintay oo la oranayo haddana beenbehe waxaynu arkaynaa sawirro sannado hore ah oo la soo dhigayo baraha bulshada oo leeyahay dadkii xoolaha bakteeyaha la soo gaaro waxaan idin sheegayaa xoolaha bariga gobolada bariga jooga weli xooluhu waa xoog waana waxay sii culaana way haystaan haba sii yaraadeen dhibaatada taagnayd labadii bilood ee na soo dhaafay iyo kontonka habeen inoo hadhay waa biyo la'aan biyahaana intii horena dowladdaa waday haddana waxaa ku soo biiray intaan ogahay 3 ganacsade oo iyaguna ballan qaaday hadda bixiyey mid waliba 1,000 booydood inuu ku deeqo kuna ballan qaaday inay wadayaan inta abaartaas biyaantaas ay jirto waxay isweydiin la ganacsada Soomaaliya way badan tahay 3 nin oo wareega maaha waxa la yaab la ganacsada badankeedu inaanay ka qayb galin dhibaatooyinka dalka ka dhaca 4 qof baa lagu eegaa ama 5 qof baa hebel iyo hebel taasina xaq maaha waxaan hubaa xoolaha Soomaaliland hayso hadday isku gurmato inaanaan u baahnayn bariyo bini aadmi inaanu haysano waxa nagu filan haddaynu is iimaansano oo qof waliba uu halkiis kaga gutado inuu hawsha ka qabto waxaan u soo jeedinayaa ganacsatada iyo qofkii waxayaba iyo qurba jooga iyo qof kastoo waxaya inuu markay dhibaato jirta ka qayb qaato oo toos qaybtiisa uga galo hadda waxaa lagu dadaalay labadii bilood waa say dowladdu 45 ceel baa la kiciyey kuwii hore socday mooyaane maalin walbana ceel kasta ceelka ay kun halaad ka cabayso ee kun reer u taagan yihiin waxa laga yaabaa inay deynimadu ku qaraxdo 3 isha gudahood way u haysaa wasaaradda biyaha iyo guddida abaaruhu miisaaneed bay ugu talagaleen ay ku dayactiraan dhammaan wixii ceelana ilaa 4 ceel imika waa laga qodayaa jiidaha ay ka dhacday biyo la'aantu oo laba ka mid ah maanta in hawl galayaan filayo inta waxa dheer guddida abaaruhu waxay waday lacag ka badan $1,800,000 ayay biyo gelisay iyo booydo labada bilood hore jiray maantana intii leeg 3 ganacsade Maxamed Saciid Habshiil Maxamed Saciid iyo Ismaaciil Weel Rimid saddexdaasi ayay iyagu marka keenay wuxuu yiri waa ku jira tijaarta kala waa soo raacda nin wali waxa uu inuu bixiya waa inay soo gurbadaa waayo mas'uul maalin deegaan bay ku dhacaysaa uma baaharin baan qaba baryada badan aw dhaqaale inagu filan weyn soo hayn hadii Soomaaliya wax celinayso maanta wadada lacagta lagu dhisay waa 9 milyan inuu wax raacaan baa laga yaabaa 3 tijaarteena kamid way maal galin kareen haddii aqoonta u doonaan lacagtana waa laga soo saari karay taburcayna suuysa waa qaba intan in ka badan wadada oo baahna burco tijaarteena furi kartaa waana soo mudagay ku dhiiradaan lacagtana way kala soo bixi karaan waxay u baahan tahay inaynu ogaano horta inuu waxayno aynu ka baxna aqliga ah fuqaraan tijaarta uu ma hayso marka loo eego waxa jira tijaar dhexe oo iyagu xilbay saarin oo had iyo jeer dawladda cashuur kala baxso la warwareeg murakeen mooye aan mar qura cusbitaal ka qayb galay hawshiisa tii aafadii koonfurka ka qayb galin taabaaraha aan ka qayb galin intaas waa iga war iyo xogogaalnimo sida ay dadku yihiin maanta adduunka waxa ka dhacaya waa ogtii oo dagaal baa ka dhacay adduunka oo dhan saameeyay dawladii waaweyn way kala urursadeen wala wixii soo xareystay inay ciidamada soo diyaarsadeen oo ogtii dhaqaalaha adduunka loo bartay ee adduunka maamul jiray nin wala wixii soo watay nin wala maxaa tabcatay waa soo socotay ayaa taagan maanta nin wala maxaa tabcatay
رجبا وين وسياسيين أنت يمادنا الدولة تطاوح حكا قبضه وارتعب بين وباهنا شذلك هو إيب ولا كلا حد السعودي الروش هو يا بحير شذلك هو بدنا إيبي روش هو حيسو حرنيه واي سقى ما تو مقرسون بانك يا دوك لا يحد اسنوحوا هيو وحرنيه وانا دلك لبada shidaalka u badan iibiya Sacuudiga ka soo raaca caalamka maanta dagaal baa ka socda goor dhamaana mooy meelu gaarayna mooy bad xiran baa soo socota talayno baahna raga waliba saaran qofka dumar taagooda way dadaala iyada biyaha soo dhaamisa iyada xaabadoonta ta magaalada joogtayda bacad fadhida ma dhacda adduunka waxaan kale 3 sano waxa ku jira dawladdu sanadka imika waxa dhibaatooyinka haysta wax kamid shidaalkii imika waxaan ka bedelay sharciga hore ee la oran jiray hal lagu adkeeyo safarka waa inaynu helaa kayd shidaal ganacsadana waxaan ka codsanaynaa waxa ayana keenaan wixii jirana waan isla eegaynaa ee safarka waa ganacsiga wax laga rabaa inuu ku jaban oo baabuur soo dili karo waxaan isla inay baabuurta mid aan dilin kara laakiin maanta haday dhibaato jirto kii uu horeeyay uu jooga dahabshin baale uu taagay waa soo deynina kuwa kalena waa soo deynina haday kara inta abaarta lagu jiro waayo waxtar bayna qoraysa iyagana waxaan ka rabaa ganacsatada shirka jabiyaan maadaama wax badan iyaga loo fududeeyo dekada iyaguna way shirka jabiyaan waxaan ku dambaysiinaa ganacsatada waxa jira raka macaasho markay dadku dhibaataysan yihiin oo intuu alaabta xariisada ku qaaleeyay taasi dee waa ixtikaar diintana waa ka mamnuuc dadnimadana waa ka mamnuuc hay'adaha ku shaqada ee ciidamadu kamid iblis kamid yahay ila ilaaliyo bina aadmiga intuu ka xidho wuxuu hayo dadka ku dhibaaya marka ay dhibaataysan yihiin kaasi islaamnimadu ku gafay mujtamaceenu ku gafay inta laba laga qaado warida furaya oo loo fiirsado ninka ixtikaar ka xidhanaya alaabta ee uu kaydsanaya markay baahdaan aad ku qaaliyeys waxaan ku marnaa mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka iyo wakiil ambassador-kooda inoo jooga aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay noo talaa Soomaaliland waxaan u dirayaa fariinta ah adbad xiran baa soo socota nin waliba itaalkiisu maraya waxaynu u baahanahay inaan dib isu eegno oo aan maxaan waxa kaga bixi karaa oo raggu mas'uuliyadda saaro oo meel hoose laga fikiro oo toornagta guud iska daayay waxayna garanay ee waqtigii naga dhameeyay jaadka ka badan dhibaatooyinka haysta inagoo waxa ku jira maalinta inta qaadriga baxdaa intaasoo hawlo inoo qaban lahayd waa si aafar inagu darsaday malaha ducuun baa naga saari karta iyo carruurteenu kala dardaaranee inteena waa wuu dishoodi intuu naga diray Ilaahay baa og dooxan wixii ka dhici jiray waa la sheegay konton nin buu sheegay ninka degmada haysta intuu joogo og yahay soo konton qof ayaa dooxadaad ku qaaday konton ka waxa ka mid ah Suudaan bar waxa ka mid ah Nuux oo ahaa sarkaal ciidamadiisa ahaa aan isku waqti ahayn Kanada ka yimid fasax ku joogay iyo boqolaal kale oo aan tiri karin dadku naga qaaday waa Ilaahay mahadi maanta walaalay naga caawin baalka hadisno iyo dadkii ka hawlgalay oo dhismo iyo dadkii ku tabarucay wixii ahayeen haday tahay gurigaaga dumi wadada ka bayn waxa yeel dadkii inta aqbalna waa mahadnaqina aad iyo aad baa mahadsantii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh